السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام walaalaha qaaliga ah meel walba oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada channelkayga halkaad igala socotaan waa Fihima channel soo dhawo ayaan ku leeyahay fadlan channelka subscribe saar sidoo kale muuqaal kalaad garay waad mahadsantihiin qisada amaanta idin wada waxay ku dhacday wiil Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho wadankeena Soomaaliya wiilkan ayaa waxa uu ku bilaabanaysaa qisadiisa sida tan gabar ayaan guursaday oo aad u wanaagsaneed oo aan isku baranay iskuul aan isla dhigan jirnay gabadha runtii waxay ahayd gabar degan dabeecad wanaagsan qurux ilaahay uu siiyay oo maanta aysan jirinin wax aan ku dhaliilaayo waxa uu ku sii daray hadalkiisa qurux lama guursado laakiin waxa ay ahayd gabar aad iyo aad u dabeecad wanaagsan aadna ii xushmeyn jirtay marka aan guursado oo aan reerkeeda ka doontay nolol aad u wanaagsan jawi degan ayaan galnay ayuu dhahay wax dhibaato ama ka tabanin runtii ilaa haddadan la joogo wax qalad oo ay iga gashay ma jirin ayuu yiri gabadhaas aad ayay u wanaagsaneed aad ayay ii xushmeyn jirtay ixtiraam fara badan ayaan dhankeeda ka heli jiray ayuu yiri waxa ayna ii dhashay caruur aad u fara badan 4 caruur ayay ii dhashay farxad ayaan ku nooleen runtii wax murugo ah mana la soo gudboonaanin ilaa markii dambe ay dhacday arrin dhankeyga ka imaada ayuu hadalkiisa ku daray wiilkan oo xaaskiisa ka sheekeeyay ahaydna xaas aad u wanaagsan waxa uu dhahay maalin ayaan xaaskeyga u sheegay aniga oo kaftamaya in aan rabo xaas kale in aan guursado waxa aan u sheegay in ay tahay xaas wanaagsan gabar aad u wanaagsan laakiin ilaahay uu ragga 4 u baneeyay oo aan rabo inaan 4 xaas ama markaasi hal xaas kale aan guursado si laba xaas markaasi ay ugu noqdaan waana awoodaa ayaan xaaskeyga u sheegay ayuu dhahay aniga oo kaftamayo oo markaasi aysan ii diyaarsaneen xaas kaleeto xaaskeyga waxa ay ugu tiri ayuu yiri haddii aad guursatid aniga bis ayaa iga tahay oo halkaasi ayay nolosheena noogu kala dhamaatay mar labaad ha igu soo qaadan arrin iyo sheeko guur bis maalintii kadib waan ka daayay ayuu dhahay nolosheena ayaa iska sii wadan canug kale ayay ii dhashay 5 caruur anaga oo heysano ayaa wuxuu dhahay maalin waxaan goobteeda shaqada ku kulanay gabar aad u qurux badan oo wax iga iibsanaysay gabadhii ayaa waxa uu dhahay maalin labaad ii soo noqotay maalin saddexaad ii soo noqotay waxba iga iibsan jirtay gabadhii wuxuu dhahay gabar iska furfuranoo waxay ahayd gabar bashaash ah gabadhii ayaa wuxuu dhahay lambar kala qoranay waxaan bilownay inaan sheekeysano sheeko kadib waxaa dhacday buu dhahay gabadhii inay igu tiri walaalow intaas wada soconaayay haddii ay isguursana maxaa ka qabtaa waxaan ku dhahay wiil walaalay xaas ayaan qabaa xaaskaygana ma ogolo arrintaas ayaa jirto caruurna waa ii haysaa waxa ay ku tiri xaaskaaga adigoo u sheegin ayaa isguursan karnaa maxaa dhib jiro maadaama ay xaaskeyga igu tiri ayuu dhahay iima sheegi kartid waxaan go'aansaday inaan xaaskeyga aan ka qariyo oo gabadhan kale ee ayadana wanaagsan aan guursado gabadhii ayaan reerkeedii ka doontay waan guursaday guurkeedana waxa uu ahaa mid markaasi aan ka qarinayo xaaskeyga kale caruurteedana ay sidaasi yacni xaaska waxa laga yaabaa ayuu dhahay inay xaaskii maseerto caruurtii ay ii daadiso sidaas ayaana uga qariyay ayuu dhahay xaaskii kale marka aan guursaday gabadhii xaaskeyga aheeday caruurtii ii haysay waa loo soo sheekay ayuu dhahay oo banaanka ayay kasoo maqmaqashay in aan xaas kaleeto guursaday kadibna arrinkii maysan rumaysan oo aniga ayaa ii imaado waxa ay weydiisay xaaska la sheegaya in ay run tahay waxa uu dhahay markii hore waan diiday inaan sheego oo waxaan dhahay maya waxaas wax ka jir ma laha maxaa la dhahaa xaas wanaagsanaa tahay mana laga yaabo inaan gabar kale kula guursado sidii marka ay tahay oo gabadhay xaaskeyga caruurta ii haysa wuxuu dhahay markasta islaaman ayaa wuxuu dhahay usoo sheegaya ninkaaga naagu qabaa ninkaaga naagu qabaa maalintii dambe xaaskeyga waxaa lagu yiri ayuu dhahay naagta uu ninkaaga guursado ayaan kusoo tusinaynaa hiblaayoy indhashareer soo xiro soo bax aan ku kaxeynay gabadhii wuxuu dhahay gabar kalaa waday waxay u geysoo dhahay gabadhii kaleeto aan guursaday meeshii ayaa lagu soo dhaweeyay qosol sheeko shaax cabid maxay ahayd sheekadii ayay halkaas dhan kusoo ogaatay ayuu dhahay inaan meeshaasi naag aan ku guursaday oo gabadhaasi aan qabo guriga ayay kusoo noqotay oo dhahay habeenkii marka ah imaaday xaaskii maba hadleysaba shab war hiblaayo maxaa kugu dhac ma xanuunsanta ani wuxuu dhahay waxba ma ogi inay maanta reerkii kale aaday isma dheheenuu dhahay qoftaan dhaqsi ayay wax soo ogaanaysaa haddii aan u sheegi lahayna wuxuu dhahay marka hore waa ay diidi lahayd sidii ayaa wuxuu dhahay xaaskii war maxaa kugu dhacay maya shib way aamusan tahay adi 2 maalmood camal ayay aamusneed ayuu dhahay kadibna maalintii saddexaad waxay ii sheegtay
in ay maxaa la arrintiisa dhan ay soo ogaatay sirtiisa dhan ay soo hesho oo xaas kale uu guursado ayna ka qarisay noloshiisana maalintaas ay ugu dambeyso oo yacni intaas ka badan aysan u dul qaadan karinin gabar kale oo lala soo guursaday gabadhii ninkii maxaa la dhahaa wuxuu isku day inuu maslaxeeyo laakiin intaas sheekadooda kuma ekaanin gabadhii waxay gashay isla hadal islaamankii inay warwareysato gabadhii maalintii ninkii uu guursaday ee lasoo tusiyey in ay gurigeeda markaasi meelaha u dhowdhow ee tagtagto si ay gabadhii usoo aragto gurigeedii ay ilowdo gabadhii ay mashquusho maskaxda ay iskala hadasho buuq fara badan ay isku furta ayay keentay gabadhii ugu dambeyn hadalkii ay idinku daalin waxaa dhacday gabadhii xooga ad inay shoog camal ee qaada ee waalatay ee qafiiftay ee maryihii tuuratay ninkii oo qisadaneeti maxaa la nala soo wadaagay ayaa waxa uu dhahay hadda waxay gabadha xaaskaygii weyneed ee taagan tahay meesha ugu dambeysay oo maskaxda ayay xoogaa yar isku dhex yaacday caruurtiina ma haysan karto oo waxa ay keentay inay isla hadasho buuq fara badan kadib markay gasho oo marmarka qaar laga yaabo inay maryaha tuurata ayuu dhahay dhaqtaro fara badan ayaan geeyay laakiin ma bogsoorin oo waxyaabaha keenay inay gabadha xaaskeyga weyn isbedel fara badan uu ku dhaco waxa ay u badan tahay ayuu dhaha maseer gabadhii kaleetana waan qabaa oo wax dhibaato ah nagama dhexeeyaan si aan u dhaho waan ku furay ayada oo wax qalad iga gelin ma garanayo sidoo kale xaaskeygi oo iga xanuunsatay oo gabar aad u wanaagsan ahayd caruurna ii haysayna qaab aan ku qanciyo ma garanayo ayuu dhahay maxaan sameeyaa ila soo taliya Soomaali Maxamedey marka wiilkan tala ayuu idinkaga baahan yahay gabadhiisii xaaskiisii weyneed ee 5 caruur u dhashay ee wanaagsaneed ee sheekada bilowgeeda uu ka soo sheekay wanaag fara badan inay u geysatay waa uu qiyaamay oo maxaa la dhahaa xaas kale ayuu guursaday muusan u sheeginin kadibna maxaa ku dhacay xaaskiisii weyneed gabar wanaagsan aheeda inay qafiiftay waalata maryihii tuuratay sababtiisana ay ku noqotay intaas oo qofkii wuxuu noqday qof isla hadlay sidoo kale gabadhii kale xaaskii aheedna waa u joogtaa oo hadda wuxuu dhahay laba daran mid dooro ayaa haysato xaaskii yareedna ma furi karo oo wax qalad maysan iga gelinin gabadhii xaaskeyga weyneed aheedna madaxeyga ayay u waalato oo waa ay qafiiftay oo xitaa caruurta ma haysan karta ayuu dhahay marka tala ayaa wuxuu dhahay iga ciir oo wax aan sameeyay ma garanayo waxaana ku noolaa magaalada Muqdisho waxa idinkaga baahanahay inaa ila soo talisaan adinkoo aad u mahadsan markaas xaabay idinkana waa mahadsan tihiin qisooyinkii hore aan soo galiyay talooyin aad u wanaagsan ayaa ka soo dhiibateen inkastoo dadka ay kala fikir duwan yihiin haddana waxa idinka rajeynaynaa qisadan wiilkan Soomaaliyeed haysato in aad la soo talin doontaan insha Allah wixii fikirkiina iyo sida markaas uu sameyn lahaa qofka markii ay dhibaato ku dhacdana laguma digto lama dhaho maxaa saas u sameysay sida aan ku arkay qiso aan mar soo geliyay gabar aan ka soo sheekeeyay oo dad badan ay dhaheen maxaa saas u sameysay adiga maxaa saas u sameysay waa qalad waayo waxaan wax markii hore Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qoray ayay aheeday marka hadii qadartii dhacday oo Ilaahay xaqiisa ay ku qorneed qofka maxaa waxaan u sameeyay lama dhaho waayo qofka asi waxna ma sameeysan karo waxna ma diidi karo calafkana markasta halkiisa waayo marka qofka markuu qiso ku dhaco ama dib uu haysto waqtigaas adinka oo talo wanaagsan soo siin kara ha ku soo diganina oo ha dhihinina maxaa saas u sameeysan iyo maxay tahay sababta asaas u yeeshay waana ceeb runtii qofkii dhiban oo u baahan talo wanaagsan oo qalbiga dejinaysa in la siiyo hadii loogu soo jawaabo horta maxaa saas u sameysay xoogaa ma qurux badno marka waa mahadsantihiin asxaabta kulli waa idin mahad celinaya soo dhawaada channelka waa channelkiini muuqaalkan muuqaalka xigo inta ku kulmeyno sidaas iyo nabadgelyo